biyuhu waa laf dhabarta nolosha guud ahaanba waxa ku xidhan aadamaha iyo dhammaan nafsanku neeflaha dhammaantii biyuhu waxa uu si toos ah wax u quudiya dhammaan noolayaasha ku nool dunida haddaba biyuhu waxa kaliya oo la oran karaa waa laf dhabarta nolosha ay ku dhaqdhaqaaqaan dhammaan nafsanku neeflayaasha ku nool dunida biyuhu waxa uu ku xidhan yahay waxa ku xidhan intaas oo aadamaha ama nafsanku neeflaha haddaba tawaangida ku taala ee kaydka ee ku yaala galbeedka magaalada Kalabayd gaar ahaan airportka magaalada Kalabayd oo ah kaydka ugu weyn ee kamid ah kaydka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba kaydkani waxa uu ku yaalaa airportka magaalada Kalabayd oo kaydka dhinaca waqooyi magaalada Kalabayd kaydkani waa kayd ballaaran oo uu gaadhay ilaa iyo degmada magaalada Togwajaale ee ah xarunta gobolka degmada gobolka Gabiley haddaba biyahani waxa si toos ah uga qoota dhammaan dadka ku dhaqan deegaamada Kalabayd Wajaale iyo deegaamo kale oo hoos yimaada haddaba kaydkan biyaha oo ah kaydka ugu ballaaran ee muddada dhaweyd dhisay ayaa waxa si toos ah ugu xidhan dadkaasi ka kala jeeda Kalabayd iyo deegaamada kale haddaba taangigan waxa si toos ah ugu xidhan intaasi oo qof taangigan waxa uu ka yimaadaa beebkiisu xaqaas iyo waxa uu ka yimaadaa Bator haddaba Abiib Cabdi aw Ciise oo ka mid ah dadka dhulkan isbixiyay ee deegaanka Kalabayd gaar ahaan xagga biyaha ayaa waxa uu si toos ah muddo dheer halkan uga shaqeynayay Abiib wax aan horay si gaar ah la yeelanay iyo kooban oo aan ku sugnay goobtaasi Abiib ku soo dhaw telefishinka ku soo dhaw Abiib أبي واحد وربحين نقصي سرتانجين يو كيدتكوجا يمددي قوبتني أتشوكتي. waxaan joogay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joogay goobtan muddo imiga 2 sano iyo bara 30 bilood waxaan markaa xabashadan guud ka cabanaynaa mushahadaan 14 bilood صح dhulka baaxadan leh ee kaydku ugu yaal yaa bixiyay anaga ayaa u hibeeyay dawladda صح maxaad ugu tala gashay markaas dhulkii markii aad hibeyseen waxaan ugu tala galay inuu kayd ahaan u qaado صح أنا بلنقاد يا لنوسي حاد كوبدلتين مقاس حاد كوبدلتين صح حرمه صح إلا نص إلا لا واشبه صح كانت كبيها وجهي صح ها هو وحبك ما ناحدين هبدا ديال كلنا صح إلا نص كابيون كعب صح إلا نص يو صح قولي واشمان صح يانا الله لو أفتح صح أبي مدة إنتلك أياد مشهر الآن كل شقينيسي حاش الصوابي إن مشاهر الآن تأسكو شقيس waxaan ku shaqeynayay mushahar la'aan dad sabran lima urtay ilaa kuma namba lama horta mushahar la'aan صح waxaan laakiin imiga mushahar la'aan qadar tan صح 14 bilood صح waan taladana noogu jirinaya ballanqaadka صح marka mas'uuliyiinta wasaaradda wax xiriir ahmal yeelatay marka mas'uuliyiinta agaasimaha guud ilaa agaasima waaxid ilaa maareeyaha biyaha Wajaale intuba way ogyihiin صح wasiirka un baa ka harsan arrintaas oo iga reeb صح waana wali face to face ku صح أبي كام كني ملاهي هايلايت أما لايت سكيورتي لايت يو مركا مقصنكي واشمان كوسي حني ملاهي هاي حق دريالك وحما كاركت ما هو arrimaha la dhaqlo ballamay laakiin aanan wali haynba صح أبي mar hadii dibka intan leeg u jiro maxaad xal u aragtaa markaas in marka la yeelay xal u aragtaa waxaan xal u arkaa in aan helo horta qodobka koowaad wixii la nagula ballamay صح saddexda arrimood صح saddexda arrimood inta laga gudbay صح layd ma hayno biyo ma hayno صح gurigii waashmaanka ma hayno صح يا دوني جلس سوي مديو صح أي والله فريق طول بلاد بشهر لنا صح أي صح أبي wax warqad ah oo qoraal ah ma ka haysaa markaas dadka ballanqaadka iskuulka ها maamulka degmada ayaan si toos ah u kala hibaysan dhulka qoraalkiina waa ka markaas waa warqadii gudoomiyaha degmada صح waa warqadii aan dhulka ku kala hibaysan markaas
hadalkaagi wax hadal ah waxaad ii sheegtay inaad tix aad ka sii daysay ha tix gabaya goobtan tixdaas oo dareenkaaga ka turjumaysa oo tixdii wax markaas wax tixdii noo noomay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tixdan gabayga waxa la yiraahdaa biyaha maamul oo dirtow dan guud bixiyaan ahaa dan guud oon ugu bahayn da'deedu lamaana tahay ku deeqay biyahan ahaa wanaag door ku lahaa dadnimo heerkay lahay dabciga wacan heerashiisa nin weel daray baan ahaa af uga dhigay baan ahaa dibnaha keenaan ahaa nin weel ku daray wanaag ku doqon noobaan ahay hadduu ruux dalgado wanaag dib ugu celintii la mid ah ama dariskayga noqon ama deetaba u dhow ayuu u qalmaa dad iyo howe dan guud isagoo hibeeyey mashaharkiisa lagu daraa biyaha maamul loo dirto haddaydan dib wax u eegin amaydaan deetays canaanan amaydaan degdeg igu imanin mushaharkaan doonayiyo wixii dana iga qabaysan markaa degdeg loo dhammaynin wale gabay wuu durkiye cirkaa la iskula sanduuli hawada diiran la isku dubani armay boqollay dareertay daruura intay samaysa dushaada ka xiin samaysay istabaqabashaa bannaane hadday dooddu sii furaato gantaalaha ruushku dira dagaal maansoo la mid ah kunbayd baan kuu diyaashay digniinina wayga taa biyaha maamul loo dirto degmadu ballankaan gallee ibayntu duceedu tahay dar ilaah baa loo hadlaayay kamay dhigin daacadli iyo qoraal daabac maayarkii la duuloo wasaaraddii daf ula yidhi deetana hor dhigay qoraalkay degmadu lahayd tixgelin diiran cidima siin wasaaraddu diidnay jiri qoraalkay degmadu lahayd dantaydii kuma san fulin dib baanu la soo noqdee inaan maansadan dareeshaa gar iyo dow igu ahaatay digniinina wayga taa biyaha maamul loo dirto assalaamu calaykum waraxmatullahi ina koorana gabaygu ha gaadho